بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا جنالكا باريس رئيس الوزراء حكومة الصومالية ayaa maanta shir gudoomiyay shir ay ka soo qayb galeen safiirada wadamada amniga ka taageera dawladda Soomaaliya. munaasabad ay soo qaban qaabiyeen xoogga wadaniinta Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. xarunta CID-da ayaa maanta dib loo furay. warkii oo dhan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta shir gudoomiyay shir ay ka soo qayb galeen safiirada wadamada amniga ka taageera dawladda Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka kaasi oo looga hadlayay amniga iyo xoreynta degmooyinka ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. shirka ayaa intiisa badan looga hadlay sidii looga xoreyn lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan ururada ka soo horjeedo dawladda Soomaaliya. kani wuxuu ahaa shir abni oo runtii looga hadlayo arrimaha amniga ee dalka waxaana shirkaani maanta shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Cali Khayre iyo waxaa nagala soo qayb galay madaxweynayaasha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxaana sidoo kale shirka ka soo qayb galay dawladaha saaxiibada aan nahay ee nagala shaqeeya arrimaha amniga waxaana lagu bogaadiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guulaha ballaaran ay ka gaareen ururada argagixisada ka dagaalamagayga Soomaaliyeed. waxaa kaloo shirka lagu mideynayay sidii loo mideyn lahaa ama loo taakuleen lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan. runtii shirka wuxuuna ahaa in howlgallada loogu soo horjeedo ururka argagixisada ah in la dardargeliyo guud ahaan dalka laga bilaabo meel kasto ii sheeg ay ka joogaan. runtii taasna waxay ahayd arrin aad iyo aad muhiimadeeda u leh guul badan insha Allah ta'ala aan rajaynayno. munaasabad ay soo qaban qaabiyeen xoogga wadaniinta Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho taasi oo lagu taageerayay gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Finish. kulanka waxaa ka soo qayb galay wasiirka warfaafinta iyo xubno kale. gudoomiyaha guddiga wacyigelinta qaranka ayaa ka warbixiyay ujeedka munaasabadani. gobolka Banaadir uu tirkooban yahay 17 guri konton way isugu xiran yahay 2714 waa weeye madaxda derisyada ee gobolka Banaadir. waxaan garan karnaa in dhammaan waxay gobolka Banaadir ay dhisan yihiin. waxa kaliya oo runtii u baahan dadkaasi hogaamiye dhaqaajiya. waxaan anigu isleeyahay maanta inaad hesheen dhammaanteen aynu helnay hogaamiye Banaadir horena waa dadkii goorni waa ka hadleen gobolka Banaadir runtii fursad u tahay qof adigoo kala oo odaya oo way araga oo khibrad leh u leh magaalada iyo dadka degan iyo waqtiga dheer ee aad bilowday anagu hadda bilowdana aragtida la bilowno waqtiga dheer ee adigoo aad fahamsanayd dhibaatada shacabka ay ku yeelan doonto muddo dheer kadib marka aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay. waxaan runtii qof kasta oo Soomaaliya oo mas'uula iyo qofkan mas'uul ahayn Soomaaliya waxaa ceeb ku ah inaynu 30 sano ku dhawaad nabad weyn nolol degan weyn ummadaha adduunka qaabkay u noolyihiin qaab ka liidata u noola. qofku caawa halkan fadhiyaa inuu gurigiisa nabad tegi doono iyo inaan nabad tegi doonin kala garan waayo. waa wax runtii boog ina ku taala oo bulshooyinka caalamka aynu kaga duwanahay. bulshooyinka caalamka oo dhan way soo martay xilliyo adag way soo martay laakiin xilligan casriga inta aynu nabadgelyo darro ku noolnahay waa inaan loo dulqaadan karin oo aad u badan.
marka waynaan bedel magaalada muqdisho waynay nabad noqota ilaahay subxaana wa tacaala munaafiq nagama dhigo qalbigiina waa huba kuwaan hor fadhiyaa ma aha kuwa munaafiqiinta kuwa bulshadii kasoo dhex baxay waaye inay u dhintaan badbaadida bulshadooda usoo baxay waaye halkaan ay caawa bartiqaad igu sameeyeen aad iyo aad ugu mahadsan tihiin garabkiinaan taaganahay meelana iskula dhimanaynaa wax kaloo idiin sheegaa waxaan idiin sheegayaa oo kale annaga dad ilmeeya ma nihine dad aarsadaana ma ilmaynayne waan aarsanaynaa waan naqaanaa cadowgeyna waxaan garanaynaa meesha ku dhuumaanaysanayo ayaan naqaanaa waa uga daba tegaynaa magaaladeennana insha allahu tacaala waa duciisanaynaa sida wasiirku sheegay cadowgeennana abbaaraynaa haddee alla idku biidni illaahi alkariim muddo aan fogeyn oo dhow waxaad arki doontiin madaxda soomaalida iyo adduunka martidiisa oo noo timaada ee magaaladan cabsi la-aan maraysa siday ahaan jirta beri xarunta CID-da ayaa maanta dib loo furay taasi oo maalmihii u dambeeyey lagu sameynayay dib u dhis xafladda waxaa ka hadlay xubno ka mid ah garsoorka dalka Soomaaliya waxaan idhi anigu dhis anigu dawladda hadhow iyada og meeshay ka keenaysay aniga wasaaradda maaliyadda waa isu dambaynaynaa marka aad baan ugu faraxsanahay wasiir dawladdu nagala soo qayb galay wasiirka canshuurta bariga nala joogaan saraakiisha labadaa kaliya ma ahayn saraakiil badan oo aan hadda aniga aanan dooda tirin karin haddaan tiriyana igu badanaya oo sarreeyayaal leh oo saraakiisha degmooyinka iyo banaadir leh ayaa isku soo dabar oo aad uga soo shaqeeyay waxaan iri waxa la bedelayaa saddex shay la bedelayaa locationka xaggaas locationka oo dhan la bedelayaa keenay waxaan iri waxa la bedelayaa processka marka qofku yimaado oo uu faraha soo doonto meeshuu wax ka bilaabi jiray meel kale uu tagi jiray aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta idinkala soo qayb galo xafladan qiimaha badan ee lagu soo bandhigayo ama lagu furayo dib u habeynta lagu sameeyay xarunta tan aynu maanta dhammaan wada joogno runtii micno gaar ah bay sameynaysaa waxaan marka koowaad uga mahadnaqayaa taliyaha inuu dareen wadaag la noqday dadkiisa mas'uul qaran waxa laga rabaa inuu ka turjumo baahida iyo dareenka ay dadkiisu qabaan waxa laga rabaa in ay damaqdo dhibta ay dadkiisu qabaan waxa laga rabaa inay farxad geliso baraadaha iyo wanaagga ay ummadiisu haysato marka waan ku bogaadinayaa tallaabadii koowaad ee uu qaaday inay ahayd dhibaatadii ee ku haysatay shacabka Soomaaliyeed ee ay halkan soo doontaan in wax ka qabto taliyaad iyo aad baan kugu bogaadinayaa adiga iyo taliya ku-xigeenkaaga iyo saraakiishaada kale ee gacanta ka siisay arrintan fulinteedaba waxa uu shaqo iyo xiriir joogto ah la leeyahay hoggaankan dambi baarista maadaama uu yahay madaxa dhammaan dambiyada dalka ka dhaca waxa uu xog badan iyo wax badan ka ogyahay qaab shaqeedka hoggaankan iyo dambi baarayaalka oo dhan warkii oo aad kala socoteen Baris Channel waa inaga inta haddaba si aad u hesho warbixinnada wararka ay baahiso channelka Baris Media fadlan subscribe saar mahadsanid